anigoo ku hadlayo magaca guddigan oon guddoomiye ka ahay aada iyo aadna ugu mahadnaqayno aniguna si gaara ugu mahadnaqayo sida wanaagsan ee xilkaasnimada leh ay u fulinayaan howlaha 18 May marka ugu horeysa 18 May waxa la qabanayaa maalinteedii caadiga ahayd ee bisha May 18keeda ee inoogu suntan maalinta qarannimada Somaliland waxa lagu yaraa xoogaa dadku ku yara arbushmay sanadkii hore waxaynu qadinay maalin oo ay sababtu ahayd Ramadaan baa maxaan ku dhahday maalin qura ka horreysay hadda imika bisha Ramadaan waxay noqonaysaa bisha 6deeda iyo haddii alla yiraahdo aynu filaynaa marka 12 casho dhowdhow baa ka hadhaya 18 May suuragal way noqon kari wadi inaynu qadinno oo aynu maalintaas soo qadinno sida la ajligeed waxaynu maxaan ku dhahday ka dhiganaa 18 May ayay noqonaysaa maalintii dabaaldeg shacab weynaha reer Somaliland ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool ee haybada iyo sharafta leh ee xorriyaddan aad iyo aad u soo gardaadiyay ee nabadgelyadeeda iyo maamulkeeda iyo dowladnimadeeda iyo qarannimadeeda aad iyo aadka ugu soo maxaan ku dhahday uga soo shaqeeyay ee halganka dheer u soo maray ee nabadgelyadeeda soo xasiliyay ee suurageliyay maanta inuu dalka Somaliland uu nabadgeliyo uu ku suntan yahay caalamkii dadweynuhuna uu inooga marqaati furay dalal badan oo la aqoonsan yahay oo mandaqada ku wada nool yahay iyo kuwa aynu qaaradda ku wada nool nahay nabadgelyada ka aynu kaga fiicannahay waxaanu ku wargelinaynaa oo ogeysiinaynaa maadaama aynu dabaaldegayno 18 guuradii waxaan ku dhahday qarannimada Somaliland ka soo wareegtay inaynu maalintaas si wanaagsan ugu diyaar garowno dadweynuhu u diyaar garoobo magaalooyinka laga shaqeeyo bilicdooda iyo nadaafadooda cid waliba gurigeeda iyo hoygeeda ganacsiga ay ka shaqeyso in lagala shaqeeyo maamulka iyo nidaamka dawladda gaar ahaan maamulada dawladaha hoose nadaafadda magaalada gaar waxaan u faraynaa guddidu u faraysaa maayarada degmooyinka kala duwan ee heerarka kala duwan leh in siday u dhan yihiin aad looga shaqeeyo magaalo walba bilicdeedu ay soo baxdo ganacsatada guryaha deegaanka caadiga ah dadka maxaan ku dhahday ganacsiga magaalooyinka waaweyn ku haysta iyo dariiqyada waaweyn inay aad iyo aad uga shaqeeyaan inay la shaqeeyaan maamulada waxaan ku dardaarmaynaa in gaadiidka la joojiyo oo la xakiyo ilaa iyo inta laga fasaxayo maalinta dabaaldega uu la gelayo ee ciidamadu marayaan qalabka gaadiidku marayo in dadka maxaan ku dhahday loo naxariisto ciidamadu inay raacaan awaamiirta iyo nidaamka biliiska iyo taraafikada ayaamaha ka horeeyana waxaan doonaynaa in gaadiidka la yareeyo socodkiisa la yareeyo weliba habeenkii la yareeyo asbaabo fara badan